kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwareed media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron barnaamijyo rabshado wata oo maanta gilgilay Hargeysa iyo iska horimaad Hargeysa ku dhex maray taageerayaasha xisbiga wadani iyo booliska Somaliland madaxweyne Farmaajo arrin xasaasi ah kala hadlay Sheekh Shariif gudoomiyihii dilaaga ahaa ee Dinsor maanta si xoog ah looga saaray degmadaasi marxuumba in dagaalka gudoomiyaha looga saaray Dinsor qayb ka ahayd Itoobiya qasaare ayaa jira xogta ugu dambeysay degmadaas waad maqli doontaan dacwadii Sheekh Shariif ka gudbiyay xukuumadda Soomaaliya oo dib loo dhigay xildhibaanna ka tirsan golaha shacabka Axmed Madoobe ku eedeeyay dil ka dhacay Kismaayo inuu ka dambeeyeen ilaaladiisa ku soo dhawaada daawadayaal intii aad maqasheen oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal aad u xoogan saacado ka horna ka qaraxay gudaha degmada Dinsor ee gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya dagaalku ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa Itoobiya ay weerareen hoyga uu magaalada ka degan yahay gudoomiyihii xilka laga qaaday ee magaaladaasi Ibraahim Axmed Nuur Shigshigow dagaalku ahaa mid aad u xoogan saacadana qaatay ayaa labada dhinac intuu socday waxa la isku adeegsaday hub culus daryankiisana laga maqlayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Dinsor iyo deegaanada hoos yimaada wararka ayaa sheegay in iska caabin sameeyeen maleeshiya aad u fara badan daacadna u ah gudoomiyaha xilka laga qaaday Dinsor balse ku hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay maleeshiyadii horkacayay gudoomiyaha Shigshigow ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in laga saaro magaalada Dinsor oo muddo dhowr sano xoog ku xukumayay waran ka helnay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Baay iyo ilaha caafimaadka Dinsor ayaa inoo xaqiijiyay in dadka dagaalka ku dhintay ay kor u dhaafayaan 12 labada dhinac ah iyo dad shacab ah gudoomiyaha Shigshigow ayaa waran ka helay Dinsor sheegayaan in isaga iyo maleeshiya daacad u ah howdka Dinsor ay galeen gudoomiyahan magaalada laga saaray ayaa lagu eedeynayaa inuu Dinsor ka geystay dambiye ka dhan ah aadanaha waxaana la sheegay in dhowr qof oo xilal loo soo magacaabay degmadan uu si bareer ah u dilay halka kuwa badanna uu xirxiray ciidamada Itoobiya iyo kuwa koonfur galbeed horkacayana gudoomiyaha xilkan loo soo magacaabay ayaa la wareegay guud ahaan magaalada Dinsor xiisadan ayaa saameyn xoog leh ku yeelatay dhaqdhaqaaqa guud ee magaaladaasi iyadoo ay xirmeen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga degmadaasi ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo kan gobolka Baay oo ku aadan dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Dinsor barnaamijyo waaweyn oo rabshado watay iska horimaad meelaha qaar ka dhacay ayaa hareeyay magaalooyin ka mid ah Somaliland haba ugu badnaatay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland barnaamijyaal uu horkacayay gudoomiyaha xisbiga wadani Cirro ayaa waa barigii hore ee maanta jeeray ciidamo ka tirsan Somaliland oo xalay lagu daadiyay xarunta xisbiga wadani uu Hargeysa ku leeyahay barnaamijyaasha askari ilaalo ah gudoomiye Cirro isku dhinaca iyo ciidanka booliska Somaliland ayaa bartamaha magaalada Hargeysa isku fara saaray waxaana halkaas ka dhashay qasaare iskugu jira dhaawac iyo dhimasho askari ilaalo ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa dhaawac daran u geystay sargaal taliye qeybeed ahaa waxaana barnaamijyaasha sidoo kale dileen dhowr askari sidoo kale ciidanka booliska ayaa xabado nool u adeegsaday dibadbaxyaasha iyo gudoomiye Cirro inkastoo markii dambe ay xoog ku jeereen dibadbaxyaasha ciidamadii booliska ahaa ay diidanaa in la gala xarunta xisbiga wadani sidoo kale qaar ka mid ah gobolada Awdal Sanaag iyo Sool waxa ka dhacay barnaamijyo lagu taageerayo Cabdiraxmaan Cirro ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay taageerayaashiisa xisbiga wadani wuxuu ka dalbaday in barnaamijyo waaweyn ay biri iskugu soo baxaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland xildhibaan Cabdulqaadir Cusable Cali oo ka mid ah xubnaha madasha xisbiyada qaran oo warramay TV-ga Somali Cable ayaa ka hadlay qorshaha la doonayo inay ku wada hadlaan hoggaanka madashaasi iyo madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Cusable ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir toos ah ula soo sameeyay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana hadda ah
gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran isagoona ka dalbaday in wada hadal lagu dhameeyo xiisada u dhaxaysa labada dhinac sidoo kale xildhibaan Cusub ayaa sheegay in Sheekh Shariif uu aqbalay soo jeedintaasi isla markaana uu u sheegay in madasha ay diyaar u tahay wada hadalkaasi Sheekh Shariif ayaa wixii markaa ka dambeeyay dawladda ugu hanjabay in Muqdisho laga saarayo haddii aysan foodada ka deen madaxdii dalkan kaga horeysay hadalkaas oo dad Soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay u kala fasireen maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadii oo 6 bishii Oktoobar ee sanadkan 2019 u gudbiyay xisbiga uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed Himilo Qaran maxkamadda dalka taa oo xisbiga uga cabanayay xukuumadda Soomaaliya dooda ugu horeysa ee maanta ayaa ahayd nooca dacwadda iyo sida loo qaadayo taasi oo la xiriirta arrimaha dhinaca maamulka ah hoolka maxkamadda waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garsoorayaal wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo xubno ka socday xisbiga Himilo Qaran dacwadan ayaa daba socota istaagii kol hore lagu sameeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose tan iyo markaa wixii ka dambeeyay waxa sii xoogeysanayay khilaaf madaxda dawladda iyo madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd kaas oo hadda gaaray meel aad u xun lama saadaalin karo natiijada ka soo bixi karta dacwadan iyo sida ay wax noqon doonaan balse waxa muuqata inay si aad ah maxkamadda ugu daahday dhageysiga kiiskan oo noqonaya kii ugu horeeyay niiciisa oo ay qabato maxkamadda sare ee dalka dhawaan ay ahayd markii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baasha Yuusuf Axmed oo warbaahinta kula hadlayay Mareykanka shaacana ka qaaday in dhawaan maxkamadda ay u fadhiiso doonto dhageysiga dacwadii ay soo gudbiyeen xisbiga Himilo Qaran oo hogaamiye ka yahay madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarkeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh Shariif ayaa dhowr mar safar ku aadi lahaa magaalooyinka Kismaayo iyo Beledweyne waxa ka hor istaagay xukuumadda Soomaaliya waxaana khilaafkii halkaas ka dhashay wali Muqdisho laga dareemayaa wasiirka amniga Puntland ayaa ka badbaaday rasaas ay ku fureen ciidankii dhawaan Boosaaso xooga ku galay wararka laga heliyay gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta la rasaasiyay kolonyo la socday wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed Galan xilli uu ku socdaalayay degmada Carmay ee gobolka Bari sida aan xogta ku helnay gaadiidku la socday wasiir Galan ayaa waxa rasaasiyay ciidankii dhawaan xooga ku galay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaasoo hadda ku sugan Carmay isla markaana hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Ciise Yulux wararka ayaa sheegay in ilaalada wasiirka iyo ciidamadaasi uu dhex maray dagaal kooban isla markaana uu jiray khasaare ka dhashay kaas oo aan wali la xaqiijin sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in labada dhinac ay kala dhex galeen waxgarad uu hogaaminayay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil isla markaana ay ku guuleysteen inay dagaalka joojiyaan walow xaaladdu wali tahay mid kacsan dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Puntland oo ku aadan iska horimaadkaasi oo halis geliyay wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed Galan gobolka waxa mudooyinkii dambe ka jiray dhaqdhaqaaq ciidan oo u dhaxeeya Puntland iyo maleeshiyadka uu hogaaminayay Ciise Yulux oo ku xoogan gobolkaasi Ciise Yulux iyo Cabdisamed Galan labada qabiil ee ka soo kala jeedaan ayaa aad ugu xoogan gobolka Bari waxaana laga cabsi qabaa hadda in rasaaseynta Ciise Yulux uu geystay wasiirka amniga Puntland ay isku bedesho dagaal beeleed ahli ah maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa laga dareemay gobolka Bari kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha maamulkaasi Ciidani iyo madaxda shirkadda BDG oo Ciise Yulux uu qayb ka yahay markaana Kismaayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil mas'uul ka tirsanaa maamulka degmada Kismaayo lagu geystay gudaha magaaladaasi marxuumka la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Axmed Buulla Ibraahim kaas oo ahaa gudoomiyaha xaafadda Fiyaaf Madoobe magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland dad goobjoogayaal ayaa u sheegay shabakada caasimada online in mas'uulkaasi ay toogasho ku dileen koox ku hubeysnaa bastoolado oo durba goobta iskaga baxsaday sidoo kale wararka ayaa inta ku darayeen uu dilku ka dhacay ay gaareen goor dambe saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo howlgallo lagu baadigoobayay ragii fuliyay dilka ka bilaabay xaafadda Fiyaaf Madoobe ee degmada Kismaayo ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay toogashadaasi balse baaritaanada ayaa lagu soo warramay inay wali ka socdaan gudaha magaalada Kismaayo xaaladda ammaan ee magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland ayaa mudooyinkii la soo dhaafay aad u xumaa iyadoo ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo qaarkood loo geystay nabadoon caanka ah deegaanada dowlad goboleedka
Soomaaliyeed ee Jubbaland. Dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ku eedeeyay dilka nabadoonka Kismaayo loogu geystay inay ka dambeeyeen ilaalada Axmed Madoobe. wuxuu hadalkiisa intaas ku daray nabadoonka dilkiisa san ka dambeeyay Al-Shabaab oo uu sheegay in mararka qaar uu taga deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab hase yeeshee dadka dilay la yaqaan cadaaladana la horkeeni doono. daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen Garwareed Media.